samka waxay u taagan tahay badbaadada hooyada iyo dhallaanka samka waxaan doonaynaa deegaan kasta oo tagno inuu la shaqeeyo samka iyagoo u taagan hooyada iyo dhallaanka maanta waxay noo yimid halkan oo si mutadawacnimo leh inoogu shaqayn doona dhakhaatiir 3 dhakhtar gabadhan hadlaysa iyo gabdhaha kale ee garab jooga waxa ay ka mid yihiin ururka daryeelka hooyada iyo dhallaanka oo magaciisa la yiraahdo Somko oo xaruntiisu ay tahay magaalada Hargeysa magaca Somko waxa loo soo gaabiyay Safe Mother and Child Organization oo macnaheedu noqonayo ururka badbaadinta hooyada iyo dhallaanka Somko waa urur ay aasaaseen sanadii 2015 dhalinyaro baratay culuumta caafimaadka ujeedada ay ururkan ay ku abuureen waa in ay gargaar caafimaad oo lacag la'aan siiyaan ubadka iyo hooyooyinka ku nool meelaha aan gargaar caafimaad ka jirin maadaama goobaha caafimaadku yihiin kuwa ku yaala magaalooyinka waaweyn oo qura waxa ay dhalinyaradani tagaan badi deegaanada miyiga iyo tuulooyinka oo ay dhibaato caafimaad oo daran ay haysato hooyooyinka iyo dhallaanka ku nool muddadii ay shaqaynayeen waxay gargaar caafimaad u sameeyeen dumar iyo carruur ay tiradoodu kor u dhaafayso 1,000 qof qaar badan oo dadkaasi ka mid ah la kulanka ay la kulmeen dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha caafimaad ee ururka Somko waxay u ahaydba markii u horeysay ee noloshooda uu dhakhtar baadho xogaha ay deegaanadaasi ay kala kulmeen ururkani muddada ay ka hawlgalayeen waxa ka mid ah in sanad walba dumar badani ay u dhintaan ama ilmuhu uga dhinto waqtiga dhalmada marka ay waayaan dhakhaatiir iyo gargaar caafimaad midna شارع من قوس قليه شارع ها ما سيريج هذا سيريج كودي بده هذا سيريج لا هذا مكانه سيريج وصل لغا توكل صفتر سانتا كاملا muuqaalkan aad arkaysaan waa hooyo ay kaga umuliyeen waddo dhexdeed oo ah goob cidla ah walow muuqaalka habka loo duubay aanay waadax ahayn sababtu waxay ahayd xaaladda oon ku talagalahayn haddana waxaad halkaa ka qiyaasi kartaa duruufta keentay in hooyadan waddo dhexdeed lagaga umuliyo meeshu waa deegaanka Geedeeble xilligaasi waxa ay kalkaaliyayaasha caafimaad ee ururka Somko ay ku soo socdeen magaalada Hargeysa iyagoo oo ka yimi deegaanka Biyashiinaha oo ay maalintaasi oo Jimco ahayd ay ka fulinayeen gargaar caafimaad halkan imaka ay taagan yihiin markii ay marayeen ayaa waxa soo gaaray gaari lagu siday gabadhan ay ka umuliyeen oo iyaga ka daba yimi si ay uga umuliyaan maadaama oo loo sheegay in ay yihiin kalkaaliyayaal caafimaad oo Hargeysa ku sii socda kalkaaliyaasha caafimaadka ee ururka Somko waxay ku guuleysteen in hooyadan iyada oo bad qabta ay ilmaha soo dhaafiyaan nasiib darrase waxa ay ka soo saareen ilmaha oo meeyda waliba burbur badani oo ka muuqda jirkiisa hooyadani waxay 3 maalmoodba foolay ku ahayd gurigeeda oo ay ku hor joogtay sida loo sheegay gabadh umulisa dhaqameeda ilmuhuna waxa uu diyaar u ahaa bilowgii fooshaba hooyadii inuu caafimaad ku soo dhaafo markiise hooyadaasi ay weyday xirfad umulisanimo oo cilmiyeysan waxa ku timi in ilmihii oo madaxa keenay soo dhaafi waayo waxa ay yana gaadhay heer ay awood beesho oo ay ilmaha awood ay isku soo dhaafiso weydo waana sababta sida aad arkaysaanba ilmuhu ugu dhex burburay cadaadiskii marinka dhalmada ee hooyada oo uu 3 maalmoodba ku jiray hooyadan iyadana waxa ay kula kulmeen deegaanka Jaleelo waxay gurigeeda ugu tageen iyadoo xaaladeedu ay aad u liidato oo aan haysan cid ka umulisa dhimashana qarka u saaran nasiib wanaag way kala badbaadiyeen waanay ka umuliyeen oo way daweeyeen ilmihiisa wuu dhintay oo caloosheeda ayuu ku dhex geeriyooday kalkaaliyaasha caafimaadka ee ururka Somko waxa ay xaaladda gabadhan ay ku macneeyeen in ilmuhu daba keen ahaa sidaa awgeedna dumarkii tuuladu ay garan waayeen si ay uga umuliyaan garasho la'aantaasi ayaa muddadii ay foosha ay ku qaadatay waxa ay keentay in ilmihii ku dhex dhinto halka waxaan ku haynaa hooyo aanu nimi saaka marka loo eegnay 4 farood iyo barbay furnayd
hadda saacadan aan taaganahayna way dhashay waxay dhashay ilmo daba keena afkayga caafimaadka iyo hawlayga marka loo xagayga loo kacana biliij balayda hooyada aad iyo aad baan uga murugoonay jeedhaca nagu taagan qiigra nagu taagan sababta noqotay wax ilmahaas iyo darxumadaas maanta ka ugu waxa weeyaan caafimaad la'aan goob caafimaad la'aan xanaana la'aan adeeg caafimaad hadaan maroojax dhaafisnayn oo maroojax ba gaarsiisnayn waxa laga shaqeynaa waa biyo culdaash dadka deegaanada ay ka shaqaynayeen waxa ay uga warrameen ururka xaalado tiro badan oo hooyadan oo kale ah iyo qaar kaba daran oo hooyooyin ku geeriyoodeen waqtigii dhalmada markii ay gargaar caafimaad waayeen halkani waa deegaanka Faraweyne oo iyana ay ka soo shaqeeyeen maalinta ay tageen Faraweyne uun ka hor waxa 3 dumar ah gargaar caafimaad la'aan ay ugu dhinteen waqtigii ay foosho ay qabatay waxaase nasiib wanaag ay badbaadiyeen markii ay deegaanka gaareen tobanaan kale oo halis qarka u saarna inay umularooraan abaar daba dheerna dhacday kulayl badan jiro dhibaato badan jirto inaanu hooyada iyo dhalaanka u kuurgalo dhibaatada ay ku sugan maanta culayska ku hayaan ay yihiin waxa weeyaan bisha gudaheeda hooyada maanta deegaanka Faraweyne ku xeeran yahay ee ay ku geeriyootay 3 hooyo oo magaacay ay ku geeriyoodeen aad bay ii damqday waa wax aad ii damqay hal hooyo ka damqday waa wax aad ii damqay alxamdulillah rabbil caalamiin qadar Allah ku maalinkan maanta halkan waxaan ku eegnay 250 hooyo oo uu leeyahay ayaan halkan maanta ku eegnay haddaan eegnay shaybaar baan u samaynay dhiig baan ka qaadnay dhiigooda baan cabirnay wax dhiikar leh wax bilaadiga waxaan awood lahayn aad u tiro badan dhacdooyinka xanuunka badan ee ay arkeen waxa kamid ah hooyo intii ay reerka lahayd 9 jeer uur qaaday nasiib darrase 9kiiba ay ka dhinteen markii ay dhalaysay hooyadaasi maalintii ay la kulmeen waxay lahayd uur 6 bilood ah oo ah uurkii tobnaad ee ay qaado xaaladdeeda markii ay wareysteen xogteedana ay ogaadeen waxay u soo qaadeen magaalada Hargeysa waxaan ay dhigeen hospitaalka weyn ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku baxnaaninayeen 3 bilood ee ugu harsanaa shinkeeda aakhirkiina waxa ay qaliinay ugu sameeyeen markii ay fooshu qabatay halkaas ayaana hooyadaasi ilmaheedii ugu horeeyay ay ku dhashay muddo dhowr iyo 10 sanadood ah oo ay reer lahayd had ilmoodu mu badbaadin tii 3 borshan ka hayeen afar lahayn intrauterus taasoo ku dhali jirtay goob aan hayn goob caafimaad carruurtooda misaa ku weyday alxamdulillah intaan hawsha wadna la kulnay waxaan ku soo xidhay cusbitaalka gudaha Hargeysa shaqaalaha cusbitaalka gudaha Hargeysa si fiican ay ula shaqeeyeen hooyada shalay talo waxaan u soo dhaadacay 4 galabnimo laga bilaabay ilaa intii ka umulaysa la jeexay waxaan kula jiray tiyaatarka dhammaanba deegaanadan ay tagaan dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee ururka Semco gebi ahaan kama jirin goobo caafimaad halka ugu dhow ee gargaar caafimaad ay ka heli karaan waa kolba magaalooyinka waaweyn ta ugu dhow ama ugu sokaysa dhibtuna kuma koobno hooyada uurka leh ee dhammaanba xanuunada dadka deegaankaasi la soo darsa uma helaan baaritaan iyo daweyn caafimaad hooyooyinka ka soko waxa dhibta caafimaad ee ugu badan qaba iyaguna ubadka yaryar oo ay isugu biiraan xanuuno iyo nafaqa darro shaybaarka gacanta laga qaaday ilmo yar oo da'diisu ahayd 4 sanadood oo uu noqday dhiigiisa 5 gram hooyadii wadatayna way taxday ilmahaya hadda waxaa inoo jooga ilmo yar oo macaan leh oo 4 jira markaan macaan ka qaaday ilmihii yaraa wuxuu noqday macaankiisii hayaj waxaa la yidhahdaa hawada ka baxay waxaa meesha ugu jira oo dhan uu sheeg waayay calashaan hawadu ka baxsay waxa ay xaaladda dadka baadiyaha ku nool ay gaarsiisan tahay in qofka xanuun u soo dhaca halka uu ku dambeeyo uuna ay eegaan inuu u dhinto iyo in Ilaahay caafiyo balse aan lagu fikirin daaweyn maadaama aanay ururka Semco ka horba arag meel wax lagu daweynayo iyo cid wax daweynaysaba kasoo dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee Semco daweynta ay u sameeyaan
dadkaasi deegaanadaasi waxa ay siiyaan dhammaan dadka ay baadhaan inta u baahan dawooyin bilaasha oo ay u sii qaadaan maadaama badanka dadkan jilicda sani aanay xitaa awoodin inay dawada iibsadaan. intaasi waxa dheer wacyigelin ay hooyooyinka u sameeyaan oo ay baraan sida ugu wanaagsan ee caafimaadkooga ay u daryeeli karaan oo ay ka mid tahay noocyada cuntooyinka u wanaagsan ee ay awoodaan helitaankooda oo ay ku dhiirigeliyaan inay cunaan. waxaan doonayaa inaan ka hadalno waxyaabo badan oo hooyooyin faaqanaha ay haystaan haddana ayna cunaynin oo nafaqo oo dhiig u kordhinaya oo calooshooda u sifeynaya. waxyaabaha waxaa ka mid ah hooyo wana wada haystaan waxaan mooynayaa beeraha ka wada baxaan sama waxa wada haystaan waa wax idin available mar kasta wada heli karaysaan wax agtiina wada yaala. ururka somko ee ay sameeyeen dhalinyarada somko waxqabadkiisu kuma koobna gargaar caafimaad oo ay tuulooyinka ka sameeyaan oo keliya maadaama dadkaas mar walba aanay la joogi karin oo maalinba tuulo ay tagayaan waxa ay dareemeen in inta ay ka maqan yihiin halistii caafimaad ay weli taagan tahay. arrintaasi waxa ay ku dhalisay in ay isku dayaan in ay goobo caafimaad oo shaqeeya u sameeyaan deegaanada qaar kolba inta ay awoodaan. tusaale ahaan deegaanka biyashiinaha waxa ku yaala dhismo xanaano oo aan shaqaynin. xanaanadani waxa ay deegaankaasi ku taalay 11 sannadood ilaa muddadaasina may shaqayn jirin. waxa dhismahaasi dadkii uga faa'iideysteen inay xoolaha ku xaraystaan. dhalinyarada somko markii ay dareemeen in maalmaha ay deegaankan ka shaqaynayaan aanay samayn karin daryeel caafimaad oo ku filan ama ha qabtiri kara marka ay ka tagaana baahidii halkii ay taagan tahay. si taasi meesha ay uga saaraan waxay dibudhis iyo dayactirba ay ku sameeyeen dhismihii xanaanada waxaanay soo dhigeen dhammaanba qalabkii caafimaad ee asaasiga ahaa ee looga baahnaa gargaarka caafimaadka. waxaa sidoo kale ay u sameeyeen qaybtii farmasiga oo ay soo dhigeen dawooyinkii oo dhammaystiran. maadaama cid aqoon caafimaad leh oo hawsha wadda loo baahanayo waxa ay shaqaalaysiiyeen 2 gabdhood oo dhalinyaro ah oo caafimaadka ka soo bartay jaamacadaha Hargeysa oo Hargeysa iska joogi jiray balse deegaankan biyashiinaha u dhashay. waxay mushahar joogto ahna uga qoreen labadaasi gabdhoodba dad ganacsato ah oo ay arrinkaasi kala sheekaysteen lana kaashadeen ilaa imikana xanaanadaasi way shaqaysaa. meelo badan oo ka sii liitaa jira xukuumad ahaan aad baan u dadaalnaa ma fadhiisanno wixii aanu qaban karnana waanu qabannaa waanu u baahannahay gacantiinna iyo inaad gacan naga siisaan horumarinta ama kor u qaadista adeegyada caafimaadka inaynu dhammaanteen innagoo xukuumad aqoon-yahan ganacsato dadweyne isku tiirsan inaynu dadkeenna wax u qabanno ayaa loo baahan yahay. waxay sidoo kale dhalinyarada somko dhismo xanaano ay imika ka bilaabeen deegaanka xumba weyne oo ka mid ah deegaanada ay ka soo shaqeeyeen kuwa xaaladooda caafimaad ay ugu liidatay oo aan goob caafimaad weligood yeelanin. imika dhismaha xanaanadaasi waxa uu marayaa sida muuqaalka aad ka arkaysaan basayskii waxaana dhammaystirmay aasaaskii oo ah sayskii. dhalinyarada somko ma jirto meel gaar ah oo ay adduun ay ka helaan aan ka ahayn shakhsiyaad muwaadiniin ah iyo ganacsato kolba ay u bandhigaan baahi taagan oo wax ka qabasho u baahan. waana sida ay dhismaha xanaanadan ku bilaabeen waxaanay ku guulaysteen inay dhismahaasi bilaabaan kuna bilaabaan niyad wanaagsan. waxaase ay rajaynayaan inay la dhammaystiraan muwaadiniinta ganacsatada iyo ciddii kasta ee dar ilaahay dadkaasi jilicdasan wax ugu qabanaysa. cusbitaalka degmada Faraweyne ayaa isna ka mid ah goobaha caafimaad ee ay geeyeen qalab iyo dawooyin wax weyn ka tari kara baahida caafimaad ee degmada Faraweyne. ururka somko waxa ka go'an meel walba iyo mar walba in dadkooda ay u fidiyaan gargaar caafimaad oo lacag la'aana gaar ahaan dadka ku nool tuulooyinka iyo baadiyaha ee aan helin gargaar caafimaad. hamigoodu waa hooyooyinka iyo dhallaanka ku nool deegaamada miyiga oo hela gargaar caafimaad oo dhammaystiran oo ay xuquuq u leeyihiin. dadka inta awoodana waxay xasuusinayaan in hawsha ay wadaan ay garabkooga u baahan tahay. waa dheeli miisaanku waa dhoomo ruux buuxo oo dharag la daacaya
iyo kaa dhulkaa jiifa ee beerka dhagax saaray. dhaqankiina wuu guuray, la isku soo dhardhaarayay, wuu dhalay damiirkiina dhalashana afkaa weeye. cidda maanta dhiifaysan lama dhaado boogteeda, loomana dhaqaaqaayo, oo dhamac qofkii jiifa waa dhibtiisa yeelkiisa, dhacdiidinoo jiifsha oo dhama gadhoorhkeenna. samka urur barbaar dhiiran dhistayoo u kaalmeeya, hooyiyo dhallaan baahan dhex tagoo ka soo duubay dhugta oo bal muuqaalkan dhiilada baldaymooda. hooyada shinkii dhaaftay ee taagla dhali weyday, ee dhiig yaraan hayso, ee dhuuni liqi weyday, biyahana dhadhamin weyday, ee laan ka dhuubnaatay, ee dhicisay 10 goorna dhakhaatiir markay weyday. samka urur barbaar dhiiran dhistayoo u kaalmeeyo, hooyiyo dhallaan baahan dhex tagoo ka soo duubay dhugta oo bal muuqaalkan dhiilada baldaymooda. dhallaankaa cadkii guuray ee dhadhay jidhkoodiina, ee dhafoorro godan yeeshay, kolla cudur dhammaynayo, kolla gaajo dhimanaya, eelay jirin cid dhaadaysa oo kinin u dhiibaysa. sumka geesiyaal dhiiran dhalinyaro xilkaa qaaday, una dhabaradaygaysa, woon dheef ka doonaynin hooyada dhibaataysan, una dhibirsanaanaya, oo wada dhakhaatiira, oo dhayma siinaya, oo barhkood ka dhalinaya, dhabtii waa libiyo guule, dhiirigelin la garab jooga.